toonta waxay ka mid tahay waxyaabaha uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu nagala dardaarmay in aan xanuunada isaga daweyno. waxaa ku jira qaybaha kala duwan ee nafaqada oo waxay qani ku tahay fitamiinada sida vitamin C-ga, noocyada kala duwan ee vitamin B-ga. sidoo kale waxaa laga helaa mineralska ama macdanta sida magnesiumka, phosphorus, calcium, iron iyo zinc. waxaa kaloo ku jira maado loo yaqaano allicin taasoo la dagaalanto jeermiska jirka soo weerara sida bacteria, viruska, fungi. sidoo kale waxay sunta ka saartaa jirka maadadan. toontu waxay sare u qaadaa difaaca jirka oo waxaa aad ugu badan noocyada kala duwan ee fitamiinada sida vitamin C-ga, vitamin B-ga iyo macdanta magnesiumka kuwaasoo sare u qaada difaaca jirka. waxay horumarisaa caafimaadka wadnaha oo waxay ka hortagtaa cudurro badan oo wadnaha ku dhaca. sidoo kale toontu waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka xun ee loo yaqaano LDH ama low density lipoprotein maxaa yeelay haddii uu bato waxaa xirma xididada dhiigga ee wadnaha. waxay kaloo daawo u tahay noocyada kala duwan ee allergiga ama xasaasiyadda. toontu waxay awood u leedahay suuxdinta gooryaamada caloosha isla markaasna si sahlan dibadda uga soo baxaan. sidoo kale waxay aad ugu wanaagsan tahay dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta. toontu waxay sare u qaadaa ama kobcisaa caafimaadka lafaha. sidoo kale waxay ziyaadiyaan hormoonka loo yaqaano estrogen kaasoo la xiriira awoodda lafaha oo haddii uu yaraado lafuhu daciifaan. sidoo kale toontu waxay daba u tahay qufaca, hargabka iyo burukiitada. sidoo kale waxaa lagu daweeyaa qaniyada bahalada sida masaska iyo dibqalooca. toontu siyaabo kala duwan ayaad u isticmaali kartaa sida inaad sideeda ku cintid ama aad iska karkarisid. sidoo kale waad shiidan kartaa oo cabitaan ahaan waad u cabi kartaa. haddii aad haragga ku leedahay ama maqaarka aad ku leedahay cambaarta ama nabraha uu keenay jeermiska fungiga sideeda ayaad u marinaysaa haragga ama maqaarka. cunidda toonta waxay keentaa inuu afka yeesho ur qarmuun ah, balse waxaan doonayaa inaan wax ka sheego qaar ka mid ah siyaabaha aad ku yareyn kartid urtaas inta aadan cunin ka hor. toonta iska karkari. sidoo kale markaa cuntid kadib afka ku luqluqo mouthwashka ama biyaha afka lagu luqluqdo sida chlorine dioxide kale. sidoo kale waxaa wanaagsan inaad afka ku luqluqato essential oil. weel yara biyo ku shubaysaa 3 dhibcood ee essential oil ayaa ku daraysaa deedna afka ku luqluqanaysaa toonta markaa cuntid kadib. cunidda toonta kadib waxaa wanaagsan qofka inuu dib u cadiyeysto isla markaasna uu isticmaalo xanjo. cab biyo badan ugu yaraan 2 litir iyo bar. cabidda badan ee biyaha waxay hoos u dhigaan urta afta ka soo baxayso. sidoo kale cunidda toonta kadib waxaa wanaagsan inaad cabtid green tea-ga ama koob caanaha si urtu u yaraato. waxaa kaloo wanaagsan inaad cabtid 1 qaando apple cider vinegar cuntada ka hor iyo kadib.